xaaladu waa isbedeshay sidii la moodayayna way noqon weyday Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland waxa la geliyay ciriiri meel kaste telefoon baa uga soo dhacaya markabkii maalinnimadii shalay la qabtay oo galabta lagu xiray dekada Boosaaso xaaladiisu waxay maraysaa ay taaban waxa barnaamijkan qodobka koobaad ku gula wadaagaya markabkii oo qarka u taagan in la shiraaco wixii laga qaaday lagu soo celiyo kadibna magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya loo diro waxaan kale oo kula wadaagayaa Saciid Cabdullaahi Dani oo xirxiray qaybo kamida raggii markabkan soo qabtay oo xabsiga la dhigay waxaan jecelahay intaan xogta iyo sharaxaad ku dagelin muuqaalka inaad si share garayso barteeda Facebook-na soo follow garayso aragtidaada barnaamijka ku saabsan commentiga aad nagula wadaagto muuqaalkan aad like garayso si uu meel fiican u gaaro soo dhawow meel waliba aad joogto xaaladu way ka sii dartaa sidii la moodayayna way noqon weyday markabkan shalay markii la qabtay oo ilaa xalay ilaa maanta galinkii hore la waayay cid hadasha marka laga reebo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo golihiisa wasiirada qaybo kamida waxa ay Puntland i'tiqaadsatay inay hubkan gacantooda galay uusan ka baxayn wax weerarana aysan jirin laakiin Xasan markuu Saciid la hadlay oo ay isfahmi waayeen Saciid waxa lagu dhiga Turkigii ilaa Turkiyo xoolahaagu waa xaraan ilaa Turkiyo waxa taasi kale safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Turkiga Saciid Cabdullaahi Dani waraaqada uu diray xataa lama hadlin waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo celisaa baa lagu yiri si la mid ah siyaasiyiin badan oo u dhashay dalka Turkiga ayaguna waraaqay u diray Saciid Cabdullaahi Dani Xasan iyo xulfadiisii waaba fariisteenba maba hadlaynay dhenaanaku Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu gaaray qoryihii qaybo kamida ciidankii markabkan soo qabtay ay qaateen inuu inta ka daba tago gacanta ku soo dhigo oo ma garanaysa markabkii uu saaro waxaan waa la yaqaanaa yaani waa tirsan yihiin 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iska daaba la yirniyo hal shay intuu ka maqan yahay markabkaas ma baxayo hal gorod oo rasaasa waa inuu samaqnaan Saciid Danta waxay ku kaliftay raggii soo qabtay markabka inuu horta qaybo kamid ah xirxiro waxa la xiray nin taliye ahaa oo qayb ka ahaa dadkii soo qabtay markabkan si la mid ah markabka markii la qabtay Saciid Cabdullaahi Dani iyo kooxdiisu waxay go'aamiyeen hubka qayb kamida in la siiyo raggii maleeshiyaadka ahaa oo markii hore bahalka soo arkay ka bacdina ciidanka BNBF u sheegay ka bacdina sida gacanta loogu dhigay hubkii marka qayb kamida waa baxay oo raggii maleeshiyaadka ahaayo soo arkay markabka balsi Saciid oo dadkii inta ka daba tagay oo meel kasta mid ku galay kaga daba tagay baaliyirkeena ku soo celiya meesha حتى markabkii waa la diiday in la furo dekada Boosaaso ku xiran yahay waa ma garanaysaa hubkii iyo gaadiidkii iyo rasaastii iyo wixiiba sidii bay u dhaxyaalaan hubkii kale oo la qaatay baadigoobkiisii la aaday wala yaabana aniga lama yaabari Puntland meel sharci ka jira weeye oo qaanuunku qabto oo sharcigu qabto oo waliba madaxweyne Dani uu qaban kara weeye laakiin waxa la yaabana sidii wax loo maleynayay oo loo moodayay oo loo qabay waa ahaan waayeen hadda xaaladu waxay maraysaa markabkii inta la shiraaco in la yiraahdo wadada ku qulqul oo sidaaya magaalada Muqdisho ka deg hubkan iyo gaadiidkan iyo rasaastan horta waxa loo waday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana lagu qalabeynayay ciidamo kamida ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si la mid ah waxa la rabay awoodiisa ugu badan in loo adeegsado saldhigii weynaa ee dayax gacmeedka ahaa oo gobolka Shabeellaha Dhexe uu yiri Turkigu waa ka dhisanaya oo waa maal gelinaya yaani Turkigu saanada intaan la eg iyo hubka intaan la eg wuxuu soo dhiibay waxay ahayd inuu saldhigaasna ku hirgeliyo si la mid ah ciidanka Soomaaliyana garab ku sii gaashaan ugu noqdo sidoo markii hore u yeeli jiray Turkigu inta badan awood qalabaysan uu ciidanka Soomaaliya siin jiray waxayna bilaabatay xilligii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa lagu tababaray ciidamadan gorgor la yiraahdo haram cad la yiraahdo ayaga soo tababaray hubkana siiyay
waana ciidamada saaka jooga Soomaaliya kuwooda la isleeyayba waa ugu awood badan yihiin walow Xasan Sheekh Maxamuud uusan u isticmaalin sidii la rabay in loo isticmaalo oo looga faa'iideysto ciidankaas qalabaysan oo tababaran xaaladdu marka hadda waxay taagan tahay waa fasaxaynaa muqdisho tagaya qalabkiisina waa tagaya hal gorado kamida Said Cabdullaahi Dani waxa la yiri intuu ka maqay xaraan bay ka tahay odagii ciriiri caadiya la galiyay yani markii hore waxa la islahaa hubkan maadaama la waayay wax sheegta Puntland baa qaadanayso waliba ciidanka BNBF iyo ciidamada kale oo kala duwan oo maamul goboleedka Puntland baa lagu qalabaynaya yani waxa la isiri hubkii caabud waaqo kale buu noqonayaa hubkan marka hubkan iyo hubkii caabud waaq farq weyn baa u dhaxeeyay waa mid koobaad ee Turkigu hal shay oo kamid ah oo uu leeyahay ma ogolaba inuu cid kala siiyo de gaadiidkan iyo rasaastan iyo hubkan waa kuwo casriyo oo intaas oo balaayiin adduunka caalamka la kala siisto laakiin hubkii caabud lagu furtay wuxuu ahaa hub laba gaari saaran oo Itoobiya laga soo raray oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu ay soo rarteen laguna talagalo dalka qaybo kamid in khalalaasay lagu galiyo amni darana lagu abuuro sidaas markii loo furtayna cid ka daba timid oo ka daba hadasho waa la waayay hatta hal qof oo mas'uuliyadda hubka sheegta waa la waayay marka laga tago xogan la ogaa dadka maaragtay hubkan u soo socday dadka soo iibiyay iyo goobaha lagu qabsaday iyo cid u diriirisay marka laga tago marka waxa la isiri hubku waa hubkii oo kale laakiin taasi waxay noqotay waxaan jirin oo Turkigu waxa uu taagan yahay adeer kan ana tabcaday oo soo saaray meelaan ugu talagalay meelaan ahayna aadi mayo kana shaqayn mayo hub la bilaqaystana sideedaba anagu ma soo saaro mana sameeyo xaaladdu waxay maraysaa allow sahal markabkiina waa shiraacday biri wixii ka dambeeya inuu tagaa la rajaynayaa xogtaas cid dambe ha weydiin muuqaalkaana sii share garay meel fiican gaarsii intaan barnaamij noocaana mid la mid ku kulmi doono waa Ibrahim Culumo idin la sidaasiyo nabadgeliyo amaan Allah